waxa caado ah xukuumaduhu marka ay waqtigoodu gabaabsi yahay ama ay arkaan indhaha shacabka ay xukuumayaan inay ka sii jeedaan inay halka ay ka bilaabaan inay saxaafadda ka qabtaan oo ay caburin xorriyadda ay runtii sameeyaan madaxweynuhu isagaa magacaabay taliyaha booliska shacabka reer Awdal iyaga soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib shacabka reer Awdal waxay uga fadhiyaan madaxweynaha taliyaha soo magacaabay gebka uu kula kacay xildhibaankoodii inuu raaligelin buuxda ka siiyo haddii aanay taasi dhicin xukuumadda maanta xaaladdu waxay ku maraysaa maskii qoratada qaatay ladina kari waayay tufina kari waayay waa qayb ka mid ah hadalka ka soo yeedhay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Faarax marumaanta warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa waxaanu xogayuhu ugu horeyn ka hadlay xadhiga loo geystay 15 wariye oo ka mid ahaa warbaahinta Soomaaliland kuwaas oo muddo 5 maalmood ah xabsiga ku jira waxa runtii maalintii shanaad xiran saxaafadii Soomaaliland waxaan runtii aad uga xunnahay inay maanta garan weynay meeqaamka ay noogu fadhiyo saxaafadeena Soomaaliland la maanta la aasaasay la malka maanta waxa qayb libaax la ka qaatay horumarkeeda dimuqraadiyadeeda oo caalamkeena gaarsiisay saxaafadeena weey waxaan wada ognahay haddayna saxaafadda ahlin dalkeena inaan adduunka intiisa badan laga garteen inagoo aan aqoonsi badan lahayn waxa heerkayna gaarsiiyay waa saxaafadda waxay ka qayb qaadatay dibudhiskii dalka dawlad abuurkii dalka dimuqraadiyaddii dalka horumarkii dalka aad iyo aad baan maanta ugu xunay iyadoo intaas oo dhan ahayd inay maanta saxaafad intaa leegi iyo wariyaal intaa leegi ay ku jiraan xabsiyada Soomaaliland waxay meel ka dhacay gaf ku tahay dimuqraadiyaddii Soomaaliland ay ku faa'iideysay waxay meel ka dhacay gaf ku tahay in abaalkoodii dadkii say ugu shaqeynayay maanta laga dhigo si wadar ah in loo soo ururiyo xabsiyada loo dhigo waxaan aaminsanahay in tiirka afraad ee dalkan ay tahay saxaafaddu waxaan aaminsanahay jiritaankeena ummadeed iyo jiritaankeena dawladeedba inay tahay adduunka inagu xidhay waxaan aaminsanahay teen kaga duwanahay dawladaha inagu xeeran iyo geeska Afrikaba in ay tahay saxaafadda xorta ee xalaasha ay lahayn inay kaga duwan dawladaha jaarka ah waayo waxa adduunku inagu majeeranayeen waxa sabab u ahaa saxaafadda Soomaaliland waxaan cod dheer runtii ku cambaaraynaynaa oo aan kaga soo horjeednaa xariga lagula kacay saxaafaddu way arkaysaa xisbigii kulmiye sidoo ula dhaqmayay xukuumaddiisa waxa caado ah xukuumaduhu marka ay waqtigoodu gabaabsi yahay ama ay arkaan indhaha shacabka ay xukuumayaan inay ka sii jeedaan inay halka ay ka bilaabaan inay saxaafadda ka qabtaan oo ay caburin xorriyadda ay runtii sameeyaan waxaan u aaminsanahay in saxaafadda dalku ay tahay tii udubna riday dawladda kulmiyana soo saartay abaalkoodu maanta hadduu taa noqday waa nasiib darro runtii leeyahay xukuumadda maanta xaaladdu waxay ku maraysaa maskii qoratada qaatay ladina kari waayay tufina kari waayay waxaan leenahay waar hal loo soo celiyo xorriyaddoodii oo hal la sii daayo ceeb iyo foolxumo runtii maanta inaga weyn ma jirto inay maanta saxaafadda inta laga inoogu xidhnaato xabsiyadeena waan ka xunahay baan leenahay taariikhdu iyada isqori doonta muddada kooban ee xukuumaddan u hadhay ee dhowrka bilood ah xagashadeeda iyo haraatideedu way badanaysaa noocyo badanna runtii dadka way u gelaysaa waan aragnaa inay siyaabo badan u saameysay laakiin shacabka iyo saxaafadda waxaan leenahay u dulqaata waqtigeena kooban ee u hadhay waanaynu iska anba bixin doonaa muddada kooban ee u hadhayna waynu isdhaafin doonaa haddii la markay doorashadu timaadee aad iyo aad baan uga xunahay isagoo hadalkiisii wata xogaya Maxamed Faarax waxa uu sidoo kale ka hadlay hanjabaad uu xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay inuu u soo jeediyay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland doorashada horta dhaxdi weyn baa dhacday ninka hadlayay xildhibaan Maxamed Abiib waa xildhibaan qaran weey waa nin qaranka uga mas'uul sharci dejinta waa nin shacab ay soo doorteen waa nin gobolka soo jeeda
marka ninkii qaranka iyo shacabku ay soo doorteen ee xildhibaanka ahaa oo kaga cawdo mas'uul kii ciidanka u sareeyay booliska in uu ku sheego isaga inuu yahay cadowga Soomaaliland runtii arkaasi nusqaan weyn foolxumo weyn ayay dalka ku noqotay reer awdalna ay runtii ku noqotay waxaan qabaa inuu ereygaasi kuma dhicin Maxamed Abiib oo kaliya marka hore guud ahaan qaranka Soomaaliland ku dhacay shacabka Soomaaliland marka labaadna waxa ku dhacay gobolka Awdal iyo shacabkii soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib ayay ereyga ku dhacay Maxamed Abiib wuxuu ku dhacay dadka halka ka soo jeeda iyo shacabka inta fayow ee qarankan in la wada leeyahay oo ummadda u dhaxeeyo oo Soomaaliland ka dhaxeeyo inta ogol ee garanaysa ayuu horta ereygaas ku dhacay maxaad u malaynaysan marka uu qof xildhibaana ereyada noocaasa oo kaga cawday taliyihii booliska shacabka masaakiinta ah ee danyarta ah ee codkoodu meel gaadhin waxyaabaha lagula dhaqmo maxaad u malaynaysan waxaan filayaa inaan wax laga warrami kara aanay runtii taas ahayn waxaanu ognahay mar hore waxaanu maqlaynay ciidan barigaas in taliyaha hore uu yiri waxba nooguma filaha iska tagaan maanta waxaan arkaynaa xildhibaan gobolka Awdal ka soo jeeda in taliyihii booliska oo kaga cado inuu cadowga Soomaaliland baata macnaheedu waxa weeyaan qaranka ma inuu baal xajeclow leh ma in gaara qarankan leh ma in gaara u damqanaysa maya waxaan qabaa inaanay gaari jirin waxaan qabaa inaanay dimuqraadiyadda inaga xumaanin waxaan qabaa inaanay Soomaalilandnimadu inaga xumaanin waxaan qabaa qof kasto xilka haya in xilkiisa lagu tixgeliyo waxaan qabaa ka bari jooga iyo ka galbeed joogaba inay Soomaaliland aanay cadow ku hayna shacab siman iyo mas'uuliyiin siman oo dalka wada damqanayeen haddii ay noqoto laba nin oo xil haya inuu midna xilka uu hayo qaranka ugu dabqanayo midna xilka uu haya uu noqon inuu cadowga Soomaaliland yahay macnaheedu magac foolxun baa meesha ka soo baxaya waxaan qabaa in raali gelin laga bixiyo madaxweynuhu isaga magacaabay taliyaha booliska shacabka reer Awdal iyaga soo doortay xildhibaan Maxamed Abiib shacabka reer Awdal waxay uga fadhiyaan madaxweynaha taliyuhu soo magacaabay gefka uu kula kacay xildhibaankoodii inuu raali gelin buuxda ka siiyo haddii aanay taasi dhicin waji kale runtii oo foolxun baa meesha ka baxayo siday noqonayso shacabkaas runtii iyaguna ka dhulsugi doona ugu dambeyntii waxa xusid mudan in hadalka xogayuhu ku soo beegmayay iyadoo muddooyinkii u dambeeyay deegaanada Soomaaliland iyo Soomaalidaba si weyn looga hadlayay xariga suxufiyiintii ugu badnaa ee xabsiga loo taxabo intii ay xilkaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale hanjabaadda xildhibaan Maxamed Abiib ee taliyaha ciidamada booliska وقدر إسماعيل محمد خضر دنبال إسماعيل شبوتاي ورركا مقبهية عالمية Som News حرقيسا